mashruuca buundada China ee dunida ka yaabiyay. Injineero reer galbeed ah ayaa bilowgii sheegay inaan buundo leh qaab dhismeedkan lagu dhamayn karin xitaa 300 sano. balse dawladda China waxa ay ku qaadatay inay 3 sano oo kaliya ku dhameeyaan dhismaha Beijing Bridge oo lagu dhisay lacag dhan $147 milyan. Buundadan hawada dhex marta waxa ay isku xirtaa dhul dhan 1 kiiloomitir iyo barka oo u dhaxeeya gobolada Guizhou iyo Yunnan ee dalka China. tan mashruucani dunida kaga yaabiyayse waa inay buundadani jooga dhulka ka sareyso 1850 feet oo ah dusha sare ee buuraha Ujai Grand Canyon. taas ayaana ka dhigaysa buundada ugu dheer dunideena marka laga hadlayo cabir dheeraadka ay dhulka ka sareyso. ashqaraarku waa qaab dhismeedkeeda oo ma jiraan tiirar ay ku taagan tahay, taas bedelkeedana xargo ama cables xooggan ayaa ku taxan oo dumista ka ilaalinaya. inaad marto ayaaba geesinimo ah. tan ay dunida tusayso ayaase ah qaab dhismeedka casriga ah ee China doonayso inay adduunka kula tartanto.